بسم الله الرحمن الرحيم. حير مدحوينه لمبر 364 ansixinta 13 kursi ee lagu kordhinayo golaha aqalka sare ee matalaadda gobolka Banaadir. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya marka uu arkay waajibka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ka saaran ilaalinta iyo horumarinta mabaadi'da aasaasiga ah ee dastuurka sida ku qeexan qodobka 87 xarafkiisa A, markuu arkay shacabka gobolka Banaadir oo ka cabanaya takoorid lagu sameeyay gobolka Banaadir oo aan wax matalaad ah ku lahayn aqalka sare ee baarlamaankii tobnaad, annaga oo ogsoon in dastuurku mamnuucay takooridda iyo sinaan la'aanta. Markuu arkay matalaad la'aanta gobolka Banaadir ee aqalka sare ay meel ka dhac ku tahay karaamada dadka ku nool gobolka Banaadir iyada oo faritaanka dastuurku xaqiijiyay karaamada aadanuhu in ay tahay lagu xadgudbaan. Markuu arkay go'aankii golaha wasiirada ee dowladda federaalka ah ee 28 Janaayo 2016 ee lagu guddoonsaday qoondeynta kuraasta aqalka sare ee looga reebay gobolka Banaadir deegaanada kuraasta loo qoondeeyay uu liddi ku ahaa cutubka labaad ee dastuurka oo qeexaya xuquuqda aasaasiga ah qodobka 10aad gaar ahaan farqada 3aad oo si cad u sheegaysa awoodda dowladda waa in aan marnaba loo isticmaalin meel uga dhicid karaamada aadanaha. Markuu arkay takoorid saameysay qaybo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed oo deegaankooda ku kooban yahay gobolka Banaadir oo sababtay in haba yaraatee matalaad aanay ku yeelan karin aqalka sare, markuu garowsaday in dastuurka qodobkiisa 11aad ku dhiirigelinayo xukuumadda tallaabooyin sinaan buuxda lagu gaarsiinayo dad ama kooxo horay loo takooray, markuu arkay qodobka 22aad ee dastuurka ee ciwaankiisu yahay xaqa ka qaybgalka siyaasadda oo siinaya muwaadiniinta ku nool gobolka Banaadir xaqa in ay wax doortaan lana doorto, markuu arkay matalaad la'aanta gobolka Banaadir in ay ka mid tahay caqabadaha hortaagan xasilinta iyo sugidda ammaanka caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, markuu arkay go'aanka golaha shacabka ee 27 bisha 6 2020 uu ku meelmariyay xeerka matalaadda gobolka Banaadir in matalaad 13 kursi ah laga siiyo gobolka Banaadir aqalka sare ee baarlamaanka 11aad, marka uu arkay xeerka madaxweyne ee lambarkiisu yahay 38 ee soo baxay 21 bishii 5aad 2016 oo lagu meelmariyay doorashada dadban ee 2016 oo qodobkiisa labaad qeexayo in Muqdisho ku yeelato aqalka sare matalaad oo u qornaa in la ilaaliyo mabda'a dastuuriga ah in aqalka sare ee baarlamaanka ay matalaad ku yeeshaan dhammaan deegaanada Soomaaliya oo ay ku jirto magaalada Muqdisho. Wuxuu xeeriyay madaxweynuhu xuquuqda matalaadda gobolka Banaadir ee aqalka sare waa xuquuq aasaasi ah oo dastuurku siiyay gobol walba oo ka mid ah 18 gobol ee dalku ahaa 1991 sida uu qeexayo qodobka 72aad ee dastuurka. 2. Si waafaqsan go'aanka golaha shacabka, gobolka Banaadir wuxuu ku yeelanayaa aqalka sare ee baarlamaanka 11aad matalaad 13 kursi ah oo ku meel gaar ah inta laga dhamaystirayo dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah. 3. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxaa la farayaa in golaha wasiirada dowladda federaalka ah ay xeeriyaan habraac gaar ah matalaadda gobolka Banaadir oo ay ka muuqato isku dheelitirnaan bulshada Soomaaliyeed. 4. Diyaarinta habraaca iyo meelmarinta matalaadda gobolka Banaadir waa in lagu fuliyaa inta lagu guda jiro doorashada aqalka sare ee baarlamaanka 11aad. 5. Xeerkani wuxuu dhaqan gelayaa marka uu saxiixo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Muqdisho 28 bisha 1 2021 madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya.